Kani waa dhismaha aqalka weyn ee caanka ah dunida oo dhan kaasoo ku dhismay ballanqaad jacayl oo dhaboobay laguna magacaabo Taj Mahal. Taj Mahal waxa uu ku yaalaa magaalada Agra ee dhacda waqooyiga dalka Hindiya 204 kiiloomitirna u jirta caasimadda waddankaas New Delhi. Waxaana la dhisay ku dhawaad 4 qarni ka hor waxaana uu ka mid yahay xadaaradaha qadiimka ah oo leeyahay Islaamku ee wali ka taagan dunida. Taj Mahal waxa loo dhisay gabadh uu qabay boqorkii shanaad ee dawladdii Tataarka ee reer Furus oo lagu magacaabi jiray Shahabuddin ibn Muhammad ibn Nuruddin kuna magac dheera Shah Jahan oo macnaheedu ahaa boqorkii caalamka kaasoo u dhisay haweeneydii uu qabay oo lagu magacaabi jiray Mumtaz Mahal oo guursaday sanadii 1612 miilaadiga. haweeneyda uu boqorku qabay oo la tilmaamay in uu saayid u jeclaa boqorku una ballan qaaday inuu u dhisi doono qasri weyn oo aan hore iyo dib toona adduunka looga dhisin, waana sida uu ku dhawoobay ballanqaadkii uu sameeyay boqor Shah Jahan. dhismaha aqalkan ayaa socday ku dhawaad 23 sano iyadoo ay ka howlgali jireen ku dhawaad 23,000 oo shaqaale iyo 1 maroodi oo ahaa rakubkii waqtigaas jiray. dhismaha aqalka Taj Mahal ayaa la bilaabay sanadii 1632 miilaadiga isagoo socday ilaa sanadii 1653 miilaadiga. isku geyn dhismaha aqalkan caan ka noqday dunida ayaa socday 23 sano waxaana lagu qiyaasaa inay dalxiis u aadaan sanadii ku dhawaad 8 milyan oo qof oo ka soo kala safra dhammaan daafaha dunida. kuniya 592 miilaadiga ayaa boqor Shah Jahan ku dhashay magaalada Bhampur ee dalka Hindiya iyadoo ay dhashay boqorad Hindus ahayd hase ahaatee magaceedu caan ka noqday dunida kadib markii ay qaadatay diinta Islaamka laguna magacaabi jiray Balqiis. haddaba dhacdooyinka la yaabka leh ee la tilmaamo inuu aqalkani gaar u lahaa ayaa waxaa ka mid ah in boqor Shah Jahan oo ahaa boqorka qasrigan u dhisay haweeneyda uu qabay uu dhammaan shaqaalihii naqshadeeyay qasrigan kadib dhamaystirkii qasriga uu ka wada jaray gacmaha si uu u dhaboobo ballanqaadkii ahaa in kan oo kale dib dunida loogu arag. dhismaha aqalka jacaylka ayaa ka kooban ku dhawaad 28,000 oo nooc oo dhagxaanta adduunka ugu qaalisan ah. gudaha qasriga waxaa ku yaala masjid aad u weyn oo ku nashqadaysan marmar ka samaysan macdanta loo yaqaan fidada oo midabkiisu yahay cadaan kaasoo dhismihiisu socday 5 sano oo ka mid ah dhismaha aqalka Taj Mahal. dhismaha aqalkan ayaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay 7 la yaab ee adduunka ama 7 cajaa'ib fi dunya. Ustaad Ahmed Lahore waa injineerka qaabeeyay dhismaha aqalka ballanqaadka ku dhismay kaasoo dhintay 5 sano ka hor dhamaystirka qasriga asal ahaanna ka soo jeeday waddanka France. Juun ee sanadii 1631 miilaadiga kadib dhalashadii wiilkii 14aad ee reer boqor Shah Jahan waxaa dhimatay boqorad Mumtaz Mahal oo ku geeriyootay magaalada Bhampur ee dalka Hindiya. kadib dhimashada boqorada ayaa boqor Shah Jahan amar ku bixiyay in la dhamaystiro qasriga sidoo kalena gudaha qasriga laga qodo
qabriga lagu aasi doono boqorada dhimatay ee Mumtaz Mahal. kadib 30 sano oo uu boqor Shah Jahan talada boqortooyada uu gacanta ku hayay ayaa sanadii 1666 miilaadiga 22 bishii January uu boqor Shah Jahan ku dhintay magaalada Agra ee dhacda waqooyiga dalka Hindiya ahna halka uu ku yaalo qasrigani iyadoo lagu aasay isla gudaha qasriga Taj Mahal gaar ahaan dhinaca midig ee qabriga boqoradii dhimatay ama haweenaydiisii uu jeclaa ee Mumtaz Mahal waana goobta ay ilaa waqtigan ku aasan yihiin boqorka iyo boqorada awgood uu ku dhaboobay dhismaha aqalka jacaylka Taj Mahal.